buskudkii aan ciidda ugu talagalay galabta sidan ayuu iigu soo baxay ugu dambeyn. Haddii aad rabtid inaad ogaatid naqshadahan iyo qaabka aan u sameeyeyna waxaad ka ogaan kartaa fiidiyogayga. Haddii aad nagu cusubtaa subscribe noo saar, haddii aad naga mid tahayna waan kaaga mahadcelinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabteyda wadajir group meel walbaad dunida ka joogtiin, ciid wanaagsan. ciidiyo la gaarin ayaan idiin hormariyey. sidee lagu ogaanayaa inaan idin jeclahay? galabta waxaan rabaa inaan idinla wadaago macmacaanka ciidda oo aan ku hormarinayo buskud qaab fudud oo qurux badan iyo dhowr naqshadood oo kala duwan. waadna ka heli doontaa. 2 xabo ukuna u baahan tahay. waxaa waaye baking powder, kaas waa subagaasaan rabaa inaan buskudka ka sameeyo galabta. waxaan ku sameynayaa vanilya iyadana sidoo kale. waxaana meesha ka maqneen waa sokorta laakiin waa shiidayaa, way nooshahay. iyo burka waxaa waaye bakeerigaas iyo bar waa idin tusayaa qaabkuu kusoo baxo. waxaan ku bilaabayaa marka hore subaga adiga waxaa waaye waa ka badsanaysaa familkaaga inta ay yihiin ayay ku xiran tahay. subaga waxaa waaye markuu sidaan dhalaal kugu yahay qasowga buskudka waxaa waa caawinaada helaysaa. hadda waxaan soo shiidayaa sidaa aragtiin waa sokortii, waayo sokorta waxaan u shiidayaa waxay iga caawinaysaa ayadii subaga inay isdhex galaan. laakiin markay nooshahay rifaaqideeda ayaa dhib badan. waxaan soo diyaarsaday baaquligaas dhalada. waxaan ku riday subaga waaba ii dhalaal sidaan horeba idinku sheegay. waxaan ku shubayaa marka sokortii iyo ayada, labadooda ayaan isdhex gelinayaa muddo adiga 1 daqiiqo ah. markay isdhex galaan ayaan waxaan rabaa inaan ku daro alaabadii kale aan idin tusaayo insha allah. waxaan ku bilaabayaa vanilya oo carafta ah. bakinka gadaal ayaan uga darayaa. kama badinayo vanilyaha sida haddaba arki doontiin. waxaan ku darayaa qaandada foodeeda oo waxaa waaye buskudkeyga waa wax yar. aniga buskudkaaga hadduu badan yahay vanilyaha waa ka badsanaysaa. qaandadaas foodeeda ayaan ku daray. intaas ayaan isla cajiimayaa. waxaan ku darayaa baking powder, asagana kama badinaye. qaandada yarta oo sokorta ah foodeedaan ku darayaa. meeshaas waxaa noogu jiro waa vanilya iyo baking powder iyo sokortii iyo subagii. intaas ayaan isdhex gelinayaa. waxaan kaloo meesha ka maqneen waa ukun. 2 xabo ukun ayaan ku darayaa. adiga haddii familkaaga ay badan yihiin ukunta waa ka badsanaysaa. markay isku dhex milmaan sokorta iyo subagii iyo ukuntii ayaan waxaan ku darayaa burkana qiyaastaada ugu samaysanaysaa. maadaama ani buskud yar aan samaysanayo bakeeri iyo bur ayaan rabaa inaan ku daro. qaabkan ugu daraayo waa idin tusayaa. burka waxaan ku samaysanayaa halkan bakeeri iyo bar, waa isla bakeerigan. maadaama aan rabo buskudkeyga inuu buskud yar iska noqdo oon ugu talagalay. barkiina hadda ayaan ku darayaa. intaas ayaan isdhex geliyey. ugu dambeyn sidan ayuu iigu soo baxay cajiinkii buskudka ahaa. waxaa waaye wax laga sheekeyn kara maba ahanaan ku iraahday. markaad subaga ku samaysanaysay buskudka qurux iyo dhadhalaalo ayuu ka qaadayaa. qaybta marka maxaan ku sameynayaa cacao powder ayaan ku darayaa. haddaa shukulaato haysata caadina waa ku dari kartaa. oo meeshaas waxaan rabaa naqshad qurux badan inay iiga soo baxdo. 3 qaando iyo bar waaye adiga qiyaas ahaan. marka intaas ayaan waxaan rabaa in aan si fiican isku dhex geliyo. fiidiyowga waa soo gaabinayaa inaa igu caajistiin ma rabo. waa kanaa waan isku soo qasay. waxaa waaye cajiinka bes ayaad shukulaatada ku qasanaysaa oo dhib badan maba kaala kulmaayo. subaga waxaan ku iraahday markii buskudka lagu sameynayo asaga dhan dhalaal qurux aan ku iraahday mujeedaa cajiinka dhan suu u kala ordaayo. rifaaqidaadana way ku xiran tahay. qaabka quruxda badan aa u rifaaqdid ayuu buskudkaaga u qurux badnaanayaa. hadda waxaan soo gaaray qaybtii naqshadaha. qaab qurux badan oo naqshad ah ka heli doontiin ayaan u sameynayaa. 2 calaacal ayaad gelinaysaa kuuskaas. sidaas aan u wareejinaya ayaa iskugu wareejinaysaa. kafeyga hadda sidaas ayuu noogu dhammaaday. waxaan soo qaadayaa cadaanka, waayo 2 shay oo kala duwan oo kalar ah markaad isticmaashid meeshaas waxaa kasoo baxayso naqshad qurux badan. sidaasaa u dheereynaya. hadda aan u dheereeyey wax yaroo kuusaa ka qaadanaysaa adi qiyaastaada ah. sidaasaa u wareejinaysaa.
marka waxaa waaye sidaas ayaan kusoo dhameynayaa insha allah. waxaa kasoo baxay marka meeshaas fiyoorahaas aa ujeediin oo quruxda badan ubaxa camal ayaan saas uga sameeyey. midna ubaxaan ka dhigayaa, midna nooc kale ayaan u sameynayaa. qaabab kala duwan ayuu kusoo bixi doonaa buskudkan. haddii aad ka heshay fiidiyogeyga waxaan ku iraahday like-taa naga iloobin. taas waxaa waaye dardaarankeyga waaye. like-ta waxay iga caawinaysaa dad badan inuu fiidiyogaas fiirsado. mididaas ayaan jag jag ku siinayaa. naqshadda waxaan rabaa inay isii qurux badnaato. naqshadan kalena sida ayaan u isticmaalayaa oo iyadana xoogaa yaraan dheereeyey. fargeetadaa soo qaadanay guriga ku yaala, qof walba fargeeto guriga waa u yaalaa. sidaasaa u dhexgelinaysaa. meeshaas maxaa kasoo baxay kii makiinada lagu sameynayay waxba maba ka baryaayo buskudkaas. kaas kafeygana sidoo kale waxaa waaye waxaan ku sameeyey asagana midida ayaan jag jag ku siiyey. qaybtan kalena sidaan ayaan u sameynayaa, waa idin tusayaa. qaybtan aan sida timaha camal aan u tidcay inay adag tahay isdhihin, way fududahay, waa la sameyn karaa. ninka waxaa waaye dayax kamceedka sameeyey waxaa waaye caloosha kalama uu soo bixin. wax walba waxaa waaye isku day waaye, isku day. gurigaaga wax kasta lagu barbartaa. qaybtii kafeyga iyo qaybtii cadaanka ayaan sidan isku agdhigayaa. ila soco. midida ayaan dhinacaas kaga jaray, tan kalena waa kaga jaraysaa. inay isla ekaadaan waa muhiim. kadib waxaan sameynayaa dhinac midigta ka wadaysaa. sidaas gacanta aan ku sameynayo. laba kalar wuxuu iskula soo baxay oo qurux badan sida haddaba aragtiin. yaa inaba caadi ma ahanaan ku iraahday. naqshadda oo cadaanka iyo kafeyga markay isdhex galaan meeshaas waxaan ku iri kalar la yaqaanaa kasoo baxaayo. marka waxaan ku iraahday buskudkii waa ila weynaada. kan buskud maba la dhihi karabe. yaa kan in la jaray u baahantaa u malaynaa. qaybtan waa la soo celiyaan ku iraahday jarow u baahan yahay, waayo buskud saas u dheer yaa cunaayaba. wax yaroo waxaa waaye oo qurux badan rabaa in uu iga noqdo. hadduu ii qurux badnaaday oo naqshad fiican oo qurux badan ii noqday. markuu yaryahaa fiican soo ma aha. sidii oo kale haddana waddadiiaan raacayaa. waa ku wareejinay dhinaca midigtaa kasoo waday. adi bidixa ka wadin, midigaa ka wadee. fartaasaas ku dhehaysaa si tartiiba, waayo subag ayaa buskudkan lagu qasay. waxaa waaye wuu kala daadaadana asaga dhan. waa ina u naxariisataa. yaa tumoo mataqaanee waa la tuutuuga ma maqashe. sidaas camal waay. waa la tuutuuga hadda arag saas waa go-ay. hadda waa soo celinee. dhinacaasaa kasoo qabanee. dhab waa isku geynayaan ku iri. ha ku daaya wareerka. sidaanuuba kusoo baxay buskud oo caalami ah. waxaan ku iri 2021 makiinad iyo muruqa xanuun maxaa kuu soo arkay. qaybtaana sidaan ayaan ka dhigay. caleeno ayaan ka dhigay kaas oo kafeyga sida caleenta camal ayaan u sharaxay. sidaan ayaan kusoo dhameeyey. qayb kaloo qurux badan ayaan gelaynaa oo naqshado eena waad ka heli doontiin. qaybtan qaybta midida waaye, kana midida ayaa lagu sharaxaa. qaybtan waxaa waaye hadda aan gelaayo waa qaybta jijinta. jijin weligaa ma samaysay? xarig oo jijin ah sidaas camala qaybtan loo sameynayaa. sidaasaa u ballaarinaysaa. hadda aan gacanta ku wado waa inay isla ekaadaan waxa aad sameynaysid. markaad kadib waa isku soo wareejinaysaa jijin camal. kana sidaanu kugu daaye. yaa wareer ma jiraan ku iri meeshaan. xabadda kalena sidoo kale waddadaasaan raacayaa. sidaasaa u wareejinaysaa. dhac waxaan ku irahday jijin camal labada fooda iskaga keenaysaa. hadda waxaan gelayaa marka qaybtii decorationka. waa qurxinta aad ayaan uga dambeeyaa. waa ukunta cadaanka ah waaye. qaybta cad waaye iyo sisin. saxankana waxa ku jiro waa sisin. burushkaasaa marka qabanayaa. ukunta meesha cadda ah ayaan waxaan marinayaa buskudkii aan haddaaya jijinta camal u sameeyey. sisinta ayaan kor ka saarayaa. waa ku wareejinayaa. way isku dhagayaan. meeshaas maxaa kasoo baxay alaab yaroo qurux badan. sidaasaan kusoo wadayaa oo ma badin naqshadaha aan jijintan u sameeyey. waxaa waaye 5 xabaan ka dhigaa u malaynayaa saan filaayo. sidoo kale dariiqii haddana kaas aan raacay ayaan kana raacayaa. meesha ayaan saaraa iyadana. midda saddexaadaan soo qabanayaa. inaan igu dheereeyaan diidayaa fiidiyooga iga raali noqda, waayo fiidiyoogan wuxuu iigu dheeraanayaa naqshadaha buskudkaan u sameynayo
ayaa kala duwan. Marka cudurdaar haddii ay aragtiin fiidiyogeyga oo maanta dheeraaday halii cudurdaarayaa. Kana sidaan ayuu kusoo dhammaaday. Muhiimadda waxay tahay in la kala faa'iidaysto. Waaba soo gaabiye hadda saasay tahay. qaybo badan oo sharaxaada ayaan tirtiray oo waxaan isdhahayay asxaabtaadii kugu caajisin. qaybtaana waxaa waaye waa la iska horkeenayaa sidii tii haddaaya camal ma aha, way ka duwan tahay. sidaan ayadan isku dhexgelinayaa saas camal aan u dheereene. kadibna waxaa waa labada fooda isku saaraysaa. sidaan ayadana kusoo wadaayaa. buskudkii makiinada lagu samayn jiray oo gacmaha dadka xanuujin jiray waa laga daalay. hadda waxaa waaye sidaana la bartay 2021. gurigaaga alaabta ku taalo ayaad ku sharaxanaysaa sida fargeetada, midida, qaandada. sidaan ayaan kusoo wadayaa. qaybta waxaan tegaynaa oo furunkeyga waa iisii daaran yahay. waxaa waa 250 uu ii joogaa. adi furunkaaga ayuu ku xiran yahay 150 hadduu kuleelkiisa saa'id yahay. laakiin ani 250 aan geeyaa. oo buskudka waxaan rabaa inuu ciyo iigu soo bixiyo. waan sii daaray hadda intaan aan shaqada qabanayo. furunka waa iisii daaran yahay. ugu dambeyn sidaan ayuu noogu soo dhammaaday. qaybtaasna qaybta fargeetada la dhahaa. fargeetadan kor ugu mudmuday. qaybtii oo dhuudhuubkana waa kanaa. qaybtii jijinta waa taasaa. waxaan ku iraada meeshaan naqshada aan caadi ahayn laga soo saaray. waa kana hadda furunkan geliyey. ugu dambeyn maasha allah sidaan ayuu iigu soo baxay buskudkii aan sameeyey galabta. qaybtaasna waa qaybta decorationka. kaakaw ayaan ku sharaxay. qaybna waa sisin. haddii aad ka heshay fiidiyowga commentiga waa ila wadaagi kartaa. dhiirigelin ayay ii tahay mar walba si aan fiidiyo usoo sameeyo. hadda waxaan fiirinayaa marka qaybta dhexdan fiirinayaa. ceeriin miyaa biseel miyaa in la ogaado waa la jikimayaa. caadi ma ahanan ku iri ishiina macalin inay isugu kala jabay. waa la dhadhamin lahaa laakiin waa la sooman yahay. waa cafiyey iga raali noqo buskudow. caawa markii la afuro laakiin laguma deynayo ciilka laguu qaban leh. yaa qaybta shukulaatada oo ubaxana sidaan ayuu kusoo baxay. waana jeclaa inaan ila kaftamo markasto. sidaan ayuu noogu soo dhammaaday buskudkeygii. haddii aad ka heshay fiidiyogeyga like-ta noo saar. asxaabtaada la wadaag si ay dad kale noogu soo biiraan. haddii aad ka mid tahay wadajir gruubna waan kaaga mahad celinayaa. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar si aan mar walba fiidiyaasha aan soo geliyo aad ula socotid. عالم كودا وما لنعانو عدل نسي عيدا 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 ما انت عيد ونكسا عيدا. عالم كودا وما لنعانو عدل نسي عيدا 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 ما انت عيد ونكسا عيدا. عزي وشرفي فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرة. عزي وشرفي فرحتك عيدا.